بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعاشركيني أفرادا كودا جني أصحابك الله سميني ويب سايت وركا oo la mid ahaa sankan khaatimo news oo kale. waxaan u dooranay wax kale ma aha, inta badan Soomaalidu waxay isticmaalaan website-yada saddex column ka kooban. kana igu dhawaaday igana qurux batay waxaan sameynaynaa halkaas inoo mareysay. hadda waxaan sameynaynaa column-kan iyo column-ka waliba qalantaas sameynayna inta sare. waxaanu tagaynaa website-keenii qaybtii content, inta content oo dhan soo refresh garay. haddaba okay, noo soo laba celiyey. halkan haddaan eegno, kaas waa xayeysiiskanna waa maqaal. kaa dhexe halkaa maqaal baa inoo imanaya, waxaana inoo imanaya warar baa inoo imanaya. xaggana waxaa inoo imanaya sawirka yare gaaban, isaga laftiisaan soo qaadaynaaba. halka waxaa inoo taalaa dhibic. halka inoo yaalla kii waxaanu siinaynaa kan waxaanu siinaynaa style waxaan siinaynaa class kalaan siinaynaa, raacinayno right, ama waxaan leenahay move ads style sheetka inoo tag. dot image-ka waxaad inoo siinaysaa height-kiisa waxaad siinaysaa baan leenahay kan ka saar. waxaad siinaysaa 150. keenii hore wuxuu ahaa 150, 100 keliya siinaynaa pixel. waxaan siinaynaa haddaba image-ka adiga marka arkaya. laakiin weli waxa hadhay waxaa inoo hadhay column-ka laftigiisii. waxaan tegaynaa halkaasaan siinaynaa. kadib waxaan leenahay content body. waxaan siinaynaa height 150, 100 keliya pixel. inoo soo refresh garee. waa kaa inoo yimi sidaan doonaynay weeyaan. laakiin halkaas way kala yar yihiin. xaggan waxaanu siinaynaa 80, sawirka 80 baan siinaynaa. ama kan waxaan siinaynaa kaasna waxaan siinaynaa 150, 120.
waxaan siinaynaa kaas padding bottom 2 pixel. okay imika saas inoo sameeyey dhibicdina way inoo taallaa halkan waan ka qaadi karaynaa haddaan doono. waxaan tegaynaa halka waan dhameynay waxaan ka qaadaynaa waxaan ka qaadaynaa la yidhaahdo cirwaankan ka qaadaynaa waanu ka qaadnay sida kan oo kale. waxaa inoo hadhay haddaba inaan qeybtaa sameyno, qeybta hadda inoo hadhay inaan sameyno. qeybta waxaanu soo dhexgelinaa markaa qoraal baan soo dhexgelinaynaa oo waxaanu sameynaynaa waa taa dhexe weeyaan. just waa right, leftii waa kan cinwaankood inoo deynaysaa. qeybtaasaanu ka saaraynaa. waxaanu sameynaynaa odhanaynaa markaa haddaan soo refresh garayno waxaad arkaysaa inuu saas inooga dhigay. waxaanu qaybinaynaa markaa halkan waxaan ku noqonaynaa kan inoogu celi. waxaanu sameynaya markaa ka markaan ku noqono qaybtii heading waxaan siinaynaa font weight on bold siinayno. bold baan ka dhigaynaa bold. okay bold buu noqday. xaggan horta waxaa inoo yaalla halkan waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 element ba inoo yaalla. 4 element iyo halkan inoo yaalla waa cinwaankii iyo sawirkii iyo halkan oo ah taariikhdii iyo halkan oo ah waxaan ohan jiray excerpt ohan jirin ama iyaroo u hordhaca qoraalka hordhac u ah warka. marka waxay noqonayaa midig iyo bidix. waxaa la bidix iyo midig labadana way kala hooseeyaan. waxaan sameynaynaa halkan aan tegaynaa website-keenii ka noqo. waxaan leenahay post. waxaan siinaynaa image. horta waxaan siinaynaa title iyo waxaan siinaynaa image ama post image. waxaan kala siinaynaa date post date. waxaan kala siinaynaa post excerpt. intaa markaan siinay xabad xabadanu soo qaadaynaa. waxaan leenahay halkaas sare kan waxaad inoo keentaa halkana waa image. waxaan ka dhigaynaaba kaabayna guddaa. kanna waa datekii siisa inagu soo qaad. kanna waxa weeyaan qeybta. intaasaan haysanaa imika. haddii website-keena hadda waan soo refresh karayno waxaad arkaysaa inuu saas noqday. saas imikanu yahay. waxaanu sameynaynaa markaa waxaan doonaa qeybtan halkan timaado, qeybtan halkan timaado. saanaan sameynaynaa haddaba
post horta inoo soo qaad post laftigiisaan soo qaadaynaa halkanaan tegaynaa waxaan leenahay one pixel solida oo ah 3e inta ka soo kaas lidka waa kalka inoo yaala waxaan sameynaynaa haddaba kaasan midig geenaynaa bidix waxaan leenahay post title float and left kana waxaan leenahay flex display maye flex soo refresh garanaynaa kariwaka halkaa inoo tegay markaad arkaysid kaa markaan haysano ama flexka laftiisa ka daa kaa markaan sameynay waxaan siinaa width baan sameynaynaa waxaan leenahay width qaybtana qaybtaas ina soo mayahayn waxaan siinaynaa boqolkiiba 65 markuu intaa qaatay intaa yare soo hadhay waxaan doonaynaa siino kan titana taasiin waxaan tegaynaa qaybteenaas waxaanu ka dhigaynaa hariif baan ka dhigaynaa qaybta titleka waa kan waxaan ka dhigaynaa madow baan siinaynaa haddaba waxaan tegaynaa keenan waxaan leenahay post title kalarkiisu waxa weeyaan 30 soo refresh garee waa kaa waxaanu siinaynaa post title waxaan siinaynaa marka hover siiyo waxaan leenahay text decoration underline baad siinaysaa baan idhi waa kaa bold baad ka dhigi karaysaa sidakan oo kale waa bold baan ka dhigaynaa kana tegaynaa font weight waa bold soo refresh garee waa kaa bold inoo noqday halkan sawirkan halkan keenaynaa haddaba anay post image waxaan siinaynaa width waxaan siinaynaa float oo right waxaan siinaynaa width tira soo maahayn 65 intan waxaan siinaynaa 20 baan siinaynaa boqolkiiba waxaan kale leenahay post image oo imagekiisa waxaan siinaynaa widthkiisa waxaan siinaynaa boqolkiiba 100 heightkiisana waxaan siinaynaa waxaad oranaysaaba heightkiisa waxaad tidhaahdaa 50 pixel waxyar buu noqonaya waa 50 pixel manaa 50 pixel waxyar buu noqonaya halkan waxaan siinaynaa halkaa
sideetan kan hoos dejinaynaa intaa markaan dhammaynay waxaan siinaynaa style sheetka waxaan siinaynaa kan waxaan leenahay clear waxaan leenahay left both kan hoos dejinaynaa haddaba xabadeen hoos dejinaynaa aga waxaan odhanaynaa markaa keena wax siisaa PR markaan siinayna hoos u degaa markaa waxaan odhanaynaa halkan post date wuxuu noqonayaa float none colorkiisu wuxuu noqonayaa red intaasuu noqonaya isagu okay labadan waxaan gelinaynaa markaa span div class baan siinaynaa clear waxaan tegaynaa halkan waxaan leenahay clear waxa weeyaan clear oo both waa kaa qaatay marka imika kana yar ballaadhinaynaa image kan waxaan ka dhigaynaa 30 okay good saasoo ka noqday waan yar dheeraysiinaynaa hoos baan dheeraysiinaynaa haynoo noqdaba wax doonaba intana waa ka halkaa inoo yaala waayahay halkan koonaha haddaad u fiirsatid waxaad arkaysaa inuu kasoo durugsan yahay waxaan tegaynaa keenan waxaan leenahay postiga padding 2 pixel dhinac walba wakaa kasoo durkay isna saasuu kasoo durkay hoosta waxaan u baahannahay haddaba hoostiisa waxoogaaba hoosta ka turkayaa waxaan odhanaynaa taa markaa main post padding waxaad odhanaysaa halkan 2 pixel hoosta waxaan leenahay 6 pixel iyo 2 pixel dhinac kala ka hore waa xagga sare top kana waa right kana waa left waxaa leeyahay bottom kana waa left waa soo refresh karaynaa markaa waa kaa hoosta waxaa inoo hadhay markaa hoosta leadka iminka inoo yaala leadka iminka hoosta inoo hadhay kaana waxaan sameynaynaa leenahay leadkaasi halkuu yaalaa horta leadkaas waxaan leenahay markaa laba mid baan yeeli karnaa border bottom baan leenahay 1 pixel oo solida oo 3 iyo
waxaan sameynaa may afwan xagga man maya kani wuxuu imanayaa halkan kii la oran jiray post exert lead waa ka yimid soo arkaysin isaga waxaan siinaynaa laftiisa waxaan siinaynaa xaggiisa saleerta ka geenaynaa padding bottom 4 pixel xagga idin bedelayna waxaan ka dhigaynaa 3D waa ka marka halkan ku saas yahay 1 pixel miya fiirso kan waxa weeyaan barnaamijka waan isticmaalaynaa waxaan leenahay inoo soo refresh kare haddaba wakaana soo baxay waxaad inoo tegaysaa kale halkii halkan ahayd content adigaarka imika saasuu inoo noqday waxaan sameynaynaa haddaba kani noo tag qeybta boosti la yidhahdo meeday boosti waa kaa waxaan leenahay markaa refresh u fiirso waa ka saas inagu dhacay saas inagu dhacay kana halkaas inoo taagan yahay kana inoo socdaa saas inoo noqonayaa sawiro kala duwan baan keeni karaynaa meesha wax badan baan sameyn karaynaa intaa markaan sameyno kadib waxaan leenahay halkan nagu soo noqo halkan waxaan ku haysanaa hal xabadaas waxa weeyaan xabadaas waa keligeed column kala bilaabmaya markaa xabadaasna waa keligeed column kala bilaabmaya kuwaana waxaan ku eegi doonaa insha allahu taala cashirkeena dambe soo sameynayno saasay ka faa'iidaysi wacan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.